dowladda hoose ee degmada Boorama oo uu hogaaminayo gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Boorama Maxamed Xuseen Meydhane ayaa bilaabay dubahabeyn ballaaran oo ay ku sameynayaan wadada bartamaha magaalada Boorama taasi oo laga dhigay mid la saaray laami casri ah gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Boorama Maxamed Xuseen Meydhane iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmadaasi ayaa ka hadlay hawsha ay halkaasi ka wadaan waxaana ka mid ah hadaladoodii waxaan leenahay dadweynaha reer Boorama waxa horta sharaf noo ah inaan ummadayada wax u qabanno waana aragtaan wax qabadkayagii inuu muuqdo muddada kooban in xilka haynay wax badan ayaa noo qabsoomay tanse waxay kaga gedisan tahay wax qabadkii hore waa kiiloomitarkii iyo 400 ugu horeeyay ee la dhigayo rug runahaantii way ka taya badan tahay wadooyinkii horena wal sameyn jirnay indihii inaad ku aragtaan laakiin dadweynaha iyagu wali waxayna u bislaanin in iyaga wax loo qaban runahaantii inaan waxayna qabano diyaar baanu ninahay inaad iskaga garab taagtaan baan niga rabnaa wax qabadku maanta oo kale aatima wiigakan soo socdana wax badan oo nagu canaanan jirteen oo aydu ka mid tahay oo godkii u diyaarinay ayaan wax ka qaban doonaa waana arki doontaan Maxamed Xuseen Meydhane maayirka degmada Boorama ayaa noqonaya maayir wax qabad ballaaran ku soo kordhiyay degmada Boorama ee xarunta gobolka Awdal walow waqti yar uu joogay xilkaasi Khadar Maxamed Xasan Labaqayle TV-ga caalamiga Somali News Boorama